أبيو يلا بعضه والله يسقور سنة يا. السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaa 18 bishii 6 2019 cisbitaal ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ku geeriyooday Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise oo ku magac dheer Sangub. Abwaanka ayaa waayadii dambe la dhacay xanuunka macaanka iyo dhaawac la sheegay inuu lugta ka soo gaaray mar uu ku sugnaa Sacuudiga oo cimro u aaday. Abwaan Sangub ayaa hiladii 1943 ku dhashay magaalada Dhagaxbuur ee gobolka Jiraar ee dawladda deegaanka Soomaalida. Abwaanka ayaa ku geeriyooday da'da 76 jir. Waxa uu ka tegay 23 caruur ah iyo 2 xaas. Waxa uu fanka ku soo biiray asagoo da'yar. Waxa uu ku bilaabay ciyaarta dhaantada oo aad ugu soo aanbaxay. Bilowgii sanadkii 1961 ayuu tagay magaalada Hargeysa oo muddo kooban joogay isla sanadkaas ayuuna u wareegay magaalada Muqdisho. Waxa uu abwaanka caan ku ahaa sameynta riwaayadaha iyo urinta heesaha. Waxa uu lahaa heeso iyo riwaayado badan oo caan baxay. Riwaayadaha sida weyn loogu xasuusto waxa kamid ahaa waa Maadays Adduunyadu, Dadkuna Way Matalayaan, Qabrigii Jaceylka, Xuskii Jaceylka, Xood Buu Liqay Jaceylka iyo Qabyo oo uu sameeyay burburkii kadib. Sidoo kale riwaayadaha Xuriyo, Maadays, Gari Ma Ka Baxda, Ninbaa Tacabkii Tolay Kaamaal, Iskuma Qaado, Xaajo Ugub, Geediga Kaa Lumay, Yaxaa Dhagaduub, Halkay Qoontu Taal, Takhtarkii Qaali Waa, ummad wada qorqoda ah baan wax u qayb leeyahay iyo kuwa kale sida Afrika ay Hurudoy. Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub sidoo kale wuxuu noqday maamulaha tiyaatarka Hargeysa. Abwaan Sangub waxa uu kamid ahaa hal abuuradii ugu caansanaa ee taariikhda fanka Soomaaliyeed soo mara. Waxa uu sanadihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho oo uu ku sameeyay koox la yiraahdo Deegaan, kuwaas oo masraxyada la isugu yimaado ka dhiga heeso iyo riwaayado dhammaantood ka tarjumaya in dib loo dhiso Soomaaliya lagana gudbo kala qaybsanaan. Abwaan Sangub ayaa burburkii kadib ku noolaa dalka Djibouti oo uu ku soo dhaweeyay madaxweynihii Ismaaciil Cumar Geelle asagoo waayadii dambena u wareegay magaalada Muqdisho. Waxa uu sidoo kale waayadii dambe ahaa gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaalida, waxaana la sheegaa inuu ahaa abwaanka labaad ee Soomaali ugu riwaayadaha badan, waxaana ka horeeya oo kaliya Axmed Saleebaan Bide. Waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa abwaanka kaliya ee suugaantiisa ay Soomaalida dhaafsanayd. Suugaantiisa ayaana u badnayd gumaysidiid iyo mid uu ku sameeyay xornimo doonkii Afrika. magna waa diiday saacadan xabanaanka ku soo dhigay weedarka waa xun yahay barafa da'aya waqti dambena waa la joogaa maxaa kugu dhacayne naagtii bay soo yirido xilliga banaanka ay soo saartay abi isay ii sheegba waxay tiri cuntada kari kartaa reerka wada leedeen lamadiina waxay tiri caruur tahay ma ilmaha ma celi sidoo maxaadba waa dhashay maxaa jira oo sikin naag kaligeed maxaa u deeyay waxay tiri guriga gogol waa gogolan kartaa sariirtaada fitso intee joogtaa ma xisaabtanta aad intee joogtaa ma yeelaya aniga sida beelash waa ku qasbantahay inaad yeeshid Maxamuud runtaan ku sheegay ana waa ku qasbantahay inaad yeeshid sariirta inaad fidisid cuntada inaad karisid ilmaha inaad celisid sabay waa wada dhasheen lamadiina waa idinka dhaxayaan ilmaha wallahi jinigana ma dheer Amerika la joogaa meeshaan waxa beenbeentay xamar lagu hayo mataal meeshaan qof walba shaqeysata beejka soo qaado runtaan ku sheegay yani hawaalan ma ila hadlaysaa ma adim ku haysta kaliya haysta kaliya isla hadlaa yaabay haweenkan Soomaaliyeed waan ka yaabay anigu waxa la yaabay wayna dhibayaan waxay sameynayaan maartay ragibay abis kareynayaan waxay leeyihiin maartay bilis bay u yeedhayaan dhaqankii baa la bedelay gurigii baana laga saarayaa habeen bad waxay dhowranayaan male maxshoonayaan si alla si la yeelo anigu ma garanayo ina hadashay Maxamuud ma aniga baa daltalmaaya waxa waa bini aadanimada iyo muslimnimada iyo insaannimada ku soo waday awada gurigaygan ku geynaa
عوض جيفو إلا عوض ذنب جيفو وحيك تنبيه هول أديك وتالا واي شيء واي المية نضل سنة كست وحل لها سنجل مادر واي فود استامكي جابك قوتان جادي كعناين سكريدي كعباين باردي اللي وتجايا نافتي بحواب دبت ما نوشيد waxay u maleynayaan meeshan adduunyo kale Soomaaliya ma la jooga meeshan oo naagaha lagu gumaysanay maanta caawiya habeen dambadaadii ii sheegtay saddexdaa wax ma iigu dari kartaa allahay alla ma ilaahan dikartid maya aqligaaga waxa rabta adiga inaa xabaday bactiri igu balaartid miya abadan jiif ku siiyay habeen dambaan kugu dir haddana habeenka saddexaad allahay alla hol adiga ku taalabay raajo meesha rabtid waxaad nagala socoteen rajada iyo maanta oo aanu ku soo qaadanay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise oo loo yaqaano Sangub oo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Addis Ababa fadlan haddaad ku cusub tahay channelka rajada iyo maanta waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe aad sidoo kale gambalelka aad furto si aad noola socoto oo aad u noqoto saaxiibka dhow ee rajada iyo maanta intaanu ku kulmayno mar kale waxaan iga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo isma dhaafin amaana Allah